qof walba mansabka uu ku fadhiyaan rabaa inaan ku salaamo sidoo kale maanta oo kale runtii waa maalin muhiim u ah bulshada ku nool degmada Xamar Jajab reer Xamar Jajab waxaan leeyahay runtii waa degmo xadaari ah oo muhiim ah inaan ay ii gartaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo gudoomiye Mungab inay ii gartaan xilkan waxay ii tahay runtii fursad waxaan isleeyahay inta graankayga ee aan qaban karo inaan degmada Xamar Jajab aan ku soo kordhin karo khibradayda iyo kartidayda si adinkuna aad ila shaqaysaan adinka la'aantiin aniga ma shaqayn karo laakiin haddii aad garba ii noqotaan aan ku duuli karo waxaan samayn karaa isbedel xaqiiqatan degmadan waa degmo facweyn waa degmo ay ku taalo meesha ugu muhiimsan isha dhaqaalaha dalka waad ogtihiin dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin zaxmadda baabuurta waaweyn ay abuuraan alaabta ka soo degta iyo sida maaragtay ay u abuuraan waxyaalahaas oo dhan degmadan ayaa nasiibsatay marka waxay u baahan tahay in qorsho iyo waxyaabo zaxmadda aysan ku dhalanaynin iyo fikrad lala imaado sidaasna runtii bulshada shacabka Soomaaliyeed Muqdisho oo la sheego inay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo ruux xaqiiqatan ay nasiibsatay in degmada Xamar Jajab ay tahay isha dhaqaalaha meesha ay wax ka yimaadaan dekadiina ay ku taalo markii intaas laga yimaado waxaan rabaa kulley shaqo noo taala